maalin igu yaabadneed waa cunug baa casharkii fahmi waaye cunug yaroo adiga 5 jir buu ahay suuradu waa leyli buu ku jiray cunugii casharkii dhowr jeeraan uga celceliyay wuu fahmi waaye hooyadiisa markii quraacda la joogay baa imaatay waxay ugu tiri macallin wiilka soo dir casharku ka bixi waaye macallin ma dhici karta hala casharkaanaa soo daray awalan horta waxaan ka ogaanaa da'diisa macallin anaga da'diisa aan 30 gaarin horta ma qorano waa gartay waxaan kale macallimiinta aan ku fiirnaa macallin aan xaasley aan ahayna ma qorano sababtu maxay tahay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahayow ilaahay dartiis baa inii jecelnahay meel kastooda adduunka joogtaan allah ini barakeeyo waa sida aad nagu taqaaneen hadba fursadaha magaalada ka jira Nairobi inaan walaalaha Nairobi ku jooga iyo walaalaha ka baxsan ee dibadda jooga inaan fursadaha markasta usoo bandhigno ayay barnaamijyadeenu inta badan ahaayeen maanta waxaa farxad qaasa ii ah inaan la joogo ama aan ku suganahay markaasu imaamu Maalik oda Soomaaliyeed macallin Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi aan isleeyahay waa culimada ama macallimiinta ugu da'da weyn dhanka macallinimada marka barnaamijkeenu insha Allah taala madrasada iyo waxay ka kooban tahay iyo sida loo dhigo iyo macallimiinta iyo jadwalkeeda saan ugu taqaaneen hadba ayaan jecelnahay inaan ka wareysano ustaadka marka hore ku soo dhaweynayna ustaadi ku soo dhawo media safiirka islaamka waa maxsantahay insha Allah waan ku soo dhaweynaa insha Allah taala safiirka islaamka soo dhawo Allah ku sharfo marka hore waxaan rabnaa intaanan madrasada iyo si u shaqeyso iyo jadwalkiina ayna u gelin horta waxaan rabnaa inaan barano maamulka madrasadan Imaam Maalik ee ka shaqeysa xaafadda Islii Miyu magaciisa saddexan iyo waxbarashadiisa soo dhawo magacayga safiirka islaamka waxaa la dhahaa Usmaan Maxamuud Usmaan Albaririyo waxaan ku dhashtay gobolka Shabeellada Hoose waxaan ku barbaaray beesha Bariire waxbarashadeedana waxay aad ugu badneed beesha Bariire waxaan ku soo barbaaray Bariire quraanka meeshaan ku soo bartay magaca Bariire saas uu baxay saas uu igu baxay ku soco quraankana markaan bartay anoo 15 jir ah ba macallinimo aan bilaabay waayahay waa maasantahay Allah ku sharfo waxaad noo sheegtaa marka hore goormee la aasaasay rugtan waxbarasho ee Imaam Maalik Imaam Maalik wax badan bay aasaasneed laakiin hadda sida mar dambe xasuustayda waxaa la bilaabay aasaaskii dambe 2010 waayahay markii adiga ugu horeysay ee aad macallin noqotay goormee ahayd anoo 15 jir baan bilaabay macallinimada 15 sano ku bilaabay maantana wadaa rajadaadu maxay tahay marka inaad iska dhaaftid mase inaad ku sii wado nolosha inta ilaa umrigay uu ka jiray insha Allah taala waa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu dhawaan ilmaha iyo macallimiinta sida ugu fudud isla qabsan karaan ayadoo la karaacin la ulaynin taban way jirtaa taas waxayna ku jirtaa macallinka horta waa inuu ahaada macallin diyaarsan murabbi ah oo wax soo bartay oo haddana khibradan leh ilmaha uu fahmi karaa markaas طريقه wax lagu bari lahay ama sida wax lagu fahamsin lahay dayar yihiin ama haday weeyihiin waana muhiim jiddan sida ugu fudud ee ilmaha quraan ku baran karaan iyo inta sano in ku qaadan karto inay quraanka iyo wixii la soo xiriiro oo ku agdhow ama aad jadwalkiina ay ku jira aad barteen imise sano in ku qaadan karto anugaas in ku keeno jadwalkiisa aad ku buuxi karteen waxay ku xiran tahay iyalka fahmadooda unuga duushan jir uu yahay awalan waxa loo bilaabo farta qofka unuga yar haduu farta uu fahmo akhrisna ma dhibayso waan gartay adiga farta iyo quraankii dhameyskiisa ila taqriiban 3 sano insha Allah taala madrasada iyo qaabkay u shaqeyso iyo jadwalkeeda wax nooga sheeg marka madrasada horta Imaam Maalik waad u jeedaa meel aad u weyn waay waxayna u qaybsan tahay dhowr nooc awalan waxa ugu weyn ilmaha yar yarka farta kuwa yar yar daada 4 jir ah tawaan qabanaa ilaa adiga 7 jir farbarkay ku dhex jiraan ilmaha markay farbarka soo dhaafaan laba qismo hadana ka kala dhignay dhowr qismo waliba 3 qayb ay kala yihiin gabdhaha waa khaas qolkooda gooni waay macallin baa ku jira iyo macallimiin gabdhaha la shaqeeya wiilashana macallimiin baa ku jira sad aragtay meesha waad soo booqatay waad fiirisay macallimiintana waa gooni ayagana wiilashada macallimiintooda waa gooni dhowr nooc kale waxaa jirta oo ay qaybsan yihiin wiilashii gabdhaha iskuuleedan waana gooni wiilasha gabdhaha oo ayagana iskuuleeda waa gooni ilmaha iskuuleeda sabtiga hadda dartooda waxaan u sameynaa tafsiir baa la siiyaa sida ayaga dhan u wada qaataan maalinka sabtiga hadda ayaga dhan baa isla wada leeyihiin tafsiir baa la siiyaa maalinka isniinta talaadada arbacada waxay imaadaan 12 saac wixii ka dambeeyay ilaa habeenkii waxaan ku goornaa 3 saac maalmahaasna waxaan u sameynaa san waqtigaas u gaarno
wax alla wixii taxfiidka ay maraan sida maalan casharka jusdarsiga iyo subca dareeriska wax dhanba way maraayaan mawaadi kale diiniga maalinkaas ayaga looma qoro laakiin maalinka isniinta talaada arbacada waxay leeyihiin duruusti kale qur-aanka ay qaadan jireen hadday muraajaca tahay hadday soo ay kulli way wada galayaan habeenkii 3 saan ku garnaa waayahay macalimiinta maxaa ku xulataan awalan horta waxaan ka ogaanaa da'diisa macallin anaga da'diisa aan 30 gaarin horta ma qorano waa gartay waxaan kale macalimiinta aan ku fiirnaa macallin aan xaasli aan ahayna ma qorano sababtu maxay tahay waxaan u yeelnaa daryeel aan waalidiinta ku daryeelayno iyaalka aan ku ilaalinayno sida tarbiyada iyo dareen asoolex maxay ka ilmuhu ka faa'iidaya marka waxay ka faa'iidaya ninkan waalid waay ilmuhu u turana ilmaha yar yar oo dugsiga dil keeno oo dhalinyarada da'da yar yar ah hoogaa uleys badan baa dadka soo wajihi kara waan gartay macalinka laakiin xaaska qabo dareemo badan buu leeyahay mas-uuliyad weyn baa saaran ilmahana aad buu markaas u danaynaya marka inuu guursado miyaa mase inuu ilmo dhalaasho maxaa may inuu guursado leanna waxaan u yeelaynaa in ninkan naftiisa horta naga asurnaado waa gartay dhow sida uu meesha gabdhaha dhigtaan oo maalan mas-uul aan ka nahay macalinka sidaas u fiirinanba allah ku sharfo waa mahadsan tahay ugu dambeyn madrasadaadu meeshay ku taalo iyo faahfaahinta ka bixi lahayd iyo fariinta waalidiinta u fari lahayd madrasada waxay ku taalaa muyuuyi wadada muyuuyi waxaan la darislanahay masaajidkan muxsin waxaan kala darislanahay gurigan nagu xigo oo magaciisa waxaan umalaynaa saxasaab baa la dhahaa barbarahan ay ku taallaa madrasada waxay kale u dhowdahay meeshan oo lagu gado alaabta maalamaaleyda maacunta dadweynaha ku nool isli waxaana aada ugu hambalyeynaa insha allah tacaala inay soo dhowaadaan waxaana meesha ay ka heli karaan insha allah tacaala mas-uuliyad culus leanna anoo weyna odaya baan jooga meesha jooga waana 60 sanaan jira aniga macalimiintana waad ujeeda waxay ka kooban yihiin 8 macalin baa joogta oo rag iyo dumar iskugu jiro xataa naag madow baa joogta nadaafadda maanta axad waay waa joogtaa nadaafadda ay ku qoran tahay subaxdii 2 saac ay soo galaan ilaa habeenkii 2 saac bay joogay iyadana macalin kale hadda qayb kale waxaa jirta aan kuu sheegin oo anaga ciyaalka aan ugu talagalnay sida magaalka ay u qayb galaan ilmaha qur-aanka aan barno taxfiidka ku jira aan bixin waxay leeyihiin wixii bacd alcasr ka dambeeyay tuushan bay leeyihiin waxaa la baraa luqaadka la baraa sida luqal ingiliishka sawaaxiliga iyo xisaabaadka la baraa waana tijaabinay waana aad bay u fiican yihiin waayahay waa mahadsan tahay guntii iyo gabangabadii aan soo gaarinay waxaan kaa codsanaynaa haddii aad noloshaadii waxyaabihii kuugu yaab badnaa intaad macalinkeed maadaama 15 sano aad macalin soo aheyd wax badan oo la yaabto waa soo aragtay wax badan oo ku farxad geliya waa soo aragtay bal haddaa qac nooga siiso noogu soo gabagabaysa runtii niyo horta arrin cajiib badan baan arkay waagii inta waxaan soo galay Kenya Nairobi isli 2007 waxaan ka soo shaqeeyay madraso la jiiraan ah markaskan Abubakar Sidiq oo Daarul Hijr la dhahay 3 sano ka shaqeynay maalin igu yaab badneed waa cunug baa 10kii fahmi waayay cunug yaro adiga 5 jir buu ahay suurad waa leyli buu ku jiray cunugii 10kii dhowr jeer uga celceliyay wuu fahmi waayay hooyadiisa markii quraacda la joogay baa iimaatay waxay u tiri macallin wiilka soo dir 10ku ka bixi waayay macallin ma dhici karta hala 10ka ana soo baray ar adeer wada 10kii wuu fahmi waayay fahmi lahay waa soo dir lahaye 10kii waan umar waan ugu celinaa wax u kaad baan ku dhahay ma 10ku uu yaqaan macallin ka dhageysay bay dhahday 10ka xalam aada soo baray ha maxaad soo bartay macallin waan xusuusta waxaan soo baray maxay ahayd ii sheeg inna sacyakum latashta waa yaabay marka gabadhii waxay tiray macallin xalan soo baray 10kii ma ahayn oo inna sacyakum latashta ku jirtay waan la yaabay marka runtii markaan ku sheego dumarka Soomaalida waalidiinta waad ogtahay wax badan bay u baahan inay wax bartaan macallimiinta maanta aad bay u caawin haday wax yaqaan hadda wax baa la bartay sidii hore ma aha waa taasna waa igu dhacday waayahay tii kale igu yaab badneed cunug markuu markaas maqlay macallin hooyadan saas dhahayso ayada may quraanka iska barato anug kale ay dhahay anug kale aw asagoo ay dhashaan ahayn maya kana dhash ma mid kale oo agtayda joogay hawaan gar ha wiilkii hadan iga yaab dhahay macallin maamada saas dhahayso wiilkii saas ugu doodayso cunug yar buu hay shan hata ma gaarin maxaa maamada quraanka u baran weyso waa yaabe waan la yaabe hadii hadda maxaad kultaneed wallahi ana macallin waxaan kultan lahay hooyadaas inay wax barato hada sax may kultahay baan dhahay inna sa'ikum la shatta inna sa'ikum la tashta ma ya macallin inna sa'yakum la shatta waay maxaa marka hooyada ku dhihi lahayn hadda marka wiilku wuxuu dhahay hooyada in wax la bara fiican maadaama waa dadaalaysa markii hadda aan u noqono Soomaalida waa taqaanaa maamooyinka anaga hooyooyinkeena quraanka ma kas jirin waxay ahaan jireen dadka hadda joogan hataa aad bay ugu fiican yihiin meel intaan soo farsan dhaweyd markaan joognay quraanka akhri maqashii akhri quraanka ru akhri bay dhihi jirtay
saasaan ku ayadoon aqoonin ayadoo aan aqoonin ma fahamtay hadda cajiib badan waa aragnay waa kan adduunka saan u socdaa marka insha allah waxaan dardaaran weyn insha allah tacaala bulshada islii rag iyo dumar baan u sheegaynaa inaan diinka ilaahay subxaana wa tacaala aan barano waa waajibaad anagana saaran lianna haddii aabbo wax yaqaano hooyo wax taqaano macalinkana ilmahaas aad buu ugu warqabaya aad iyo aad baad u mahadsan tahay oday soomaaliyeed macalin soomaaliyeed oo 60 jir ah oo madrasooyinka islii ama nairobi wax ka bara ama wax ka dhiga macalimiin fara badanna u shaqeyso ummad badanna ku duul nool yihiin ayaan maanta madrasadiisa soo booqanay cajaa'ibtaas aad aragteen ama aad dhegeysateena dabcan waan ka aragnay madrasadiisa ardadiisana aad baan ugu mahad celinaynaa soo dhaweyntiisana aad baan ugu mahad celinaynaa intaas iyo intaan dib dambe isugu imaan doono madrasada iyo boorkeedana waa taasaa wixii fariina iyo faahfaahina بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء أحوى